ururka samafalka Anfac Foundation ayaa maanta deeq dharka ciida ah gaarsiiyay in ka badan 460 caruur ah oo iskugu jira danyar iyo agoon ku nool gudaha magaalada Boorama. Munaasabad seer sare loo soo agaasimay isla mar ahaantaana ka qabsoontay hoolka ballaadhan ee hoteelka Haldoor ee magaalada Boorama waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka ka degmada Boorama, hogaanka dhaqanka, culimada wax garad, haweenka ururada kala duwan ee ka howlgala magaalada Boorama, bulshada qaybaheega kala duwan iyo danyarta la guddoonsiinayay dharkii ciida. Munaasabadan oo hanaankeega dhicitaan ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay waxa ugu horeyntii goobtaasi ka hadlay isla mar ahaantaana faahfaahin dheeraad ka bixiyay tirada dadka la ciidsiinayo iyo deeqaha kala duwan halkii ay ka soo gaadheen gudoomiyaha ururka samafalka Anfac Foundation samafalahinta Cadoshaare waxayna tilmaamtay ururka samafalka Anfac Foundation waa urur jira muddo sanad iyo 2 bilood muddada uu jiray waxa uu ka soo qayb qaatay samafalka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo ugu weyneed duufaantii Sagarwan. waxaanu ka qayb qaadanay caawinta dadkii ugu horeysay masiibooyinka duufaanada ay ku dhaceen ee gargaara iyo loohaya dadkii ugu horeeyay tagayaan kamid ahayn. waxaanu ka qayb qaadanay beeraha aanu qodno oo siidhanu siinay iyo agoonta ciidsiintooda iyo dadka danyarta ah hayntoodu yar tahay raashinka oo loo dhigo iyo maxaan ku raayay ceelan qodnay. ururka samafalka Anfac Foundation waa uu badan yahay hawsha uu qabtay halkan kuma soo koobi karo. dankooga hadalka waxa iska daba qaatay xubno ka socday ururada kala duwan ee ka howlgala magaalada Boorama oo uu kamid ahaa ururka haweenka qarankeena. maantana waxa muuqata in midhaheedii Anfac maalinta ka dambaysa ay kor u sii socoto oo ay ku xawli aad u sareeyo waliba ku socoto. sababtuna waxay tahay ninka danyaro u gargaara waxa weeyaan Ilaahay buu wakiil uga yahay arlada oo wuxuu wakiil uga yahay inuu miskiinkaasi la iloobe laga tagi lahaa oo isagu gaarsiiyo wixii risqi ahaa ee u soo marin. Hinda Cadoosh oo ah gabadh active oo u dhalatay gobolka Awdal kana shaqeynaysa horumarka gobolka aad baan ugu hambaleynayaa ururkan Anfac Foundation. waxaan aad kale u hambaleynayaa hablihii la shaqeeyay iyo shaqaalihii la soo shaqeeyay. waxaan kale oo hambaliyay bogaadin celinayaa caruurta maasha Allah halka fadhido oo 500 ka yareyn laha ummadda. aad bay maanta farxad iyo liibaan iyo ducaba inigu dhacday intaas oo u baday iyo intaas oo waalida oo ka farxiseen oo salaadii lagu tukanayo ciidii ku ciidayaan caruurtii maasha Allah ani qiiray haysamo hadli karayo waan inii ducaynayaa Anfac rag iyo dumarba waxaan ugu Ilaahay inigu ducaynayaa miisaanka xasanaadka inuu eeba inigu daro. bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo kamid ah waalidiinta danyarta ee magaalada Boorama ku nool waxaan idiga mahadnaqayaa sidaad noogu soo dhaweyseen ee magaranaysaayay had ciyaalka noogu ciidisteen yaan niga mahadnaqayaa. hogaanka dhaqanka ee gobolada galbeedka Soomaaliland oo dhankooga hadalka qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa Anfac waxaan leeyahay anigu aamiin u baan oran. Anfac ereyga waa wanaagsan yahay, ereyga u baan aamiin lahay ka Allah idinka dhigo. fil anbiyaa wal mursaliin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد مرك هوري مايركا دقمدا بس السلام حقيا قبلك صلادينتا علمدا عفوا سدوك الحلماندا دمان متشرتك الديوان دمانتي واحد يقول سلام يا صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدوك halman hadal kuma jiray waxa aan iloobay waa diinta soo fadhiday ururada kala duwan sidoo kale maama Faysa oo qaybta bahdi ka nahay sharciga dhamaantiin waxaan maxaa kuuliyay jooga meeshan Haldooradii ururka haday haween tahay iyo haday rag tahayba iyaga maxaa kuuliyay anaga nagu soo dhaweeyay. anagu markaa waxaan galoo meeshan ka soo qayb galay ummadda intii maxaan ku xuriyay agoonta wax u taraysay ama dadka danyarta caawinaysay oo gaar ahaan ururka magacaan u sheegnay ayaa halkan ka muuqda. kulleyn waxaan joognaa daraar khayr leh maalin khayr leh joognaa 28 Ramadaan weeyaan 29 way ku dhamaanaysaa baa la leeyahay waa maalin weyn. iid baa ina soo gashay
ururkaa la yidhaahdo anfac foundation sidaa ugu dadaalay oo agoomahan ugu dadaalay iyo inta ka aqbashay ee maayarku kow ka yahay baayac mushtarigu laba ka yahay intii haddana la xidhiidha inta dibadda ka dhegaysanaysa iyo inta dalka ka dhegaysanaysa waxaan leenahay ha la taageero anfac foundation meel kastaba ha laga soo taageero sanadka sanadkiisa waxaa wax ka badan ummadda ha loo qabto kuwii u soo jeeda ee ka shaqeeya ee ku dadaalay la kulma laytil khadarka allah inaga dhigo allah inaga dhiga gebigeenba waxaa kaloo aad iyo aad u soo dhawaynayaa oon aad u salaamayaa maayarka maayar Saleebaan oo halkan laga sheegay inuu aad iyo aad uga qayb qaatay carruurta agoonta danyarta ay iidoodii iyo inta kale la midka aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa waxa kale oo aad u soo dhawaynayaa hay'adda anfac horta magaca waa laga soo sheegay ku noqon maayo xildhibaan Cabdi Cismaan Dhagaweyne oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka Boorama xogayaha gobolka Awdal oo iyaguna dhankooga hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa wax kastaba waa anfac yaani macna ay leedahay waa macna ballaaran runtii ilaahay waxaan uga rajaynayaa oo uga baryayaa bariyaha Ramadaan ee ciid aynu ku jirno maanta waa ciid kolkee kuwa gartay ee hantidoodii ku bixiyay ee juhdiga geliyay ee inta u shaqeynay ee habeenada ka mid ah soo booqday anfac yaani waqtiga ay shaqeynayeen iyo sida ay u shaqeynayeen iyo dadka ay sida ay ahaayeen runtii aniga way dhiirigelisay way soo jeedisay indhahayga runtii barnaamijkan ciidsii walaalka ee anfac foundation ay wadaan bilowgii hore kulankii u horeeyay ee maayarka iyo anfac ay yeesheen xiriirkayga aniga iska lahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay si qurux badan buu soo dhameystiray maayar Saleebaan Xasan Xadiduqa degmada Boorama oo isagu kamid ahaa shakhsiyaadkii deeqaha kala duwan soo gaarsiiyay ururka samafalka Anfac Foundation oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu mahadnaq ballaaran u jeediyay ururka samafalka Anfac Foundation isagoo tilmaamay kan maanta doonayna ka cadeeyo waxaanu doonaynaa inaan kala shaqeyno wax kasta oo wanaagsan ururka anfac hadaatiin magaceega xildhibaanka iyo mas'uuliyiintii ugu horeysay way sheegeen waa uu naanfacay runtii ummadana waa anfacay dhalinyar kale badan oo aad u firfircoon la joogi jirtay sida sahaliyo iyaguna waa naanficeen oo kaalintoodii way buuxiyeen khayr Allah siiyo inaan ciidsiina haday tahay waayo 460 baa maanta la ciidsiinayaa oo carruurtii danyarta ahayd ama agoon isugu jira gacan ilaahay uma horta lagu dhargaa si kastaba ahaatee ma aha markii ugu horeysay danyar iyo agoon noocan ah uu ciidsiyo ururka samafalka ee Anfac Foundation waxa la xasuustaa xilligan oo kale inuu ciidsiiyay in ka badan 400 oo carruur ah si kastaba ahaatee kuma eeko kaliya dharka ciida balse waxa uu ka qayb qaataa caawimada kala duwan ee la gaarsiinayo danyartiya dadka ay hayntoodu yartahay Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV gobolada galbeedka Soomaaliya